qorqoro xildhibaano diyaarsan inuu yiraahdo oo ku dhawaaqo waxa kala hubsaday odayaasha markii lagu gabin jiray odayaashii ma meeshay joogan dadkii oo hataa ayadoo sharci ahayn taas naftirkeeda yani iska tahay garjajeex iyo sharci darro ay tahay oo wixii lagu heshiiyay muddo Soomaaliyeed ku heshiisay asaga qayb ka ahaa oo sanadkan aan ku mashquulaynay 2 sano ilaa 3 sano ku dhawaad aan soo wadnay la garamarayo haddana waxaan ogaaday dadkii ma joogan odayaasha dhaqanka taa ma joogan qaar xamar ay joogan qaar Shabeelle hoose jiraan qaar Bakool ay jiraan 3 sano ku kalmaqan yihiin dad yar oo reer Baydhabo ah ameesha jooga waxa leeyahay waxa la bilaabay xalay dhan lagu mashquulsanaa in hebel adiga ma ku qoraa hebel liiskan bilaabay adiga ma ku qoraa dadka qaar igor qaarni adiga sabab maxaa loo qorayaa oo marsaasa wax lagu noqonayaa in iyo dadkii yaabiin walaaliyaal waxaan idin sheegayaa rankii asiga ahaa fidno ku talagalay arintaas walaalkay waa ugu digayaa akhyaarta sharafta hortiin waxaan idinku sheegayaa arintaas wax la aqbali karo ma aha walaalkay waxaan u direeyaa arintaas aan ugu digayaa inuu ka waanto meel ka fadhiisto dadka kala mid yahay cid xaq u siisay inuu ilaa qorqoro hadii qof kasta waxa qoran meel fadhiisto aan boqol kale qoro asna meel ku qoro 9 qoro mid kale 8 soo qoro masaas wax lagu noqonayaa wixii Abdulaziz qoro wixii baartay qof kale iska socoto inta meel fadhi qoro isku mid waay wax la aqbalayna ma aha walaalihii Soomaaliyeed batiin madaxda dalka tihiin arintaas inaad ogaatiin marxaata ka noqotaan waxa inta meel fadhiisto shakhsi qorqoray ilaa loo ma aqoonsanayo waa ku tumasho xuquuqdii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii xuquuqdu lahaa inay dadkii rabaan soo doortaan shakhsi meel badan la isku dayay waa lagu khasaaray waa ka duwan tahay wal meeshan meedii kale waa ka duwan tahay meel taladeed hal qof joogto ma aha marka walaalayaal taasna waxaan hortiin ugu sheegayaa inaad ma artay qof ka qayb ka qaato hadduu asaga waa shay annaga dhabarka qabna aqligan qabna aanu ma waalanin laakiin waxa ka sii daran ayadoo magaaladii 40 koon la fadhiyo degmooyinka kul gaadhan soo abaabuleen oo yiraahdeen ma aragtay Abdulaziz maamulkiisa waan ka baxnay dad hantadooda intii la balaqaystay magaalada lagu dhaxwata marka qof dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay qofka hadii dagaal maslaba qof is dagaalaan hal mar oo duruuf laga qaato Soomaaliyeed waxay ku dhaxaysaa markii la soo yimaado heshiiska horta waa galeen horta furkayga hal isoo alaabtii laga qaatay bal laga haysta alaabtaas markii la soo celiyo ayaa waanta bilaawata shakhsi asiga lamid ah mase shakhsiyaad lamid ah ya xoolahooda intii la qaatay gurigooda looga tagay waliba dadaan dagaal ku jirin ya magaalada uga dhaxmashaahayaa waxa la leeyahay si aan galnimo arto waa ka arxad baan ogaada waxaan baa wada heelan ka qaadanay la leeyahay dad adiga kula mid ah xuquuqdaad leedahay leh oo walaalka ah ayadoo tii taaganta aan rabno inaan heshiiska aan u fadhiisanana la laga diiday haddana waxa lagu sii darayaa meel baan fadhiya haddana dadkaas wixii matali lahaan anaa u qoraya kuwii aan dilay miidkooda waa iyaala kuwii maaragtay cararayn duurka joogan haddana kii matala naa qorqoraya walaalayaal waxaan rabaa arintaas ogeysin baa idinku siinayaa dadkii Soomaaliyeed matalaya tihiin arin la aqbalaya ma aha walaalkay waa ka waaninaya inuu arintaas ku sii fogeynin baan ku waaninaya man la aqbalayo man la aqoonsanayo xilbaan sidii lagu xulin lahaa taladeeda dadkaas u fadhiisan doona dib heshiisna ku hormarayna dadka isku soo celinayna markii dadka isu yimaadaan maalmaha soo socdo ya kadib waxaan sameeynaa doorashadii aan balaawno haye yaa mudan qaabkee loo maraya qaabkii dastuuriga ahaa horey ayadoo dastuurka Jarmal waxa dhici jirtay in intii maartay arinta culays la dareemo qaab lagu heshiiyay lagu doortay taa waa jirta laakiin waxaan la ogolaan karin qofkii qorigiis magaalada ku dhaxaysto airportkii tigniga dhigtay oo yaani dadkii qaar u dhintay qaar u dhaawaca qaar magaal banaanka ku haya oo gaajib banaanka ku hayaan dhaxitaanka baylo hadda ka bilaawday hadii la idin sheego waxa laga soo gudbaan islahayn Soomaali waa ka gudubtay dagaal sokay iyo qax in laga gudbaan u haystay maanta qaxga baylo ka socdo aadi maaha walaalayaal arintaasna waxaan idinku sheegayaa dadkii wax ka qabasheeda lahaaba tihiin saas idinku sheegayaa maartay ayadoo maanta maalin farxad tahay ii tahay oo ummadda Soomaaliyeed marka hore dhabaatanaydeen hadan islahaayeen soonkan nibadad ku soo soonteen gurihiin ku ciiday islahaayeen iyo hadda qax lagu jira meeshaas taas maartay dhibaato dhacday weeye waan aadan ugu xunnahay waxaan leenahay qofku waxaas hogaaminayo inuu ka waanto daraadeed qofka mas'uulka ah inaad sideedii sharci islaamku wuxuu qabaa qofka mas'uulka in loo nasteeyo wax wanaagsan loo sheego lagu la taliyo iyo in loo duceeyo islaamka soo qaba aseen waxa leenahay Allah ka soo hanuuniyo umada guumaadka ku haayeen
inuu ka haro inuu garto in dadkii talada lahaa oo ummadaas gargaarkooda iyo maslaxadooda ku shaqaynayay oo asigana weliba olaad u haynin in olaad asiga ku raadsado gacantiisa iyo afkiisa taasna waa ugu digaynaa marka waxaa arrintaas sababtaan ugu dheeranahay waxay tahay waxaan u jeedaa arrin hadda fudud la xallin karo in la sii fogeynayo oo dhibaato meesha ka soo socoto ummadaas ilaahay oo dhammaanteenaba ilaahay maaragtay dhibaatada naga bixiyo abaarta iyo olaad isku darsantay allah naga bixiyo olaadeed waa waxaa waa dhammaanaysaa haddana maaragtay haddii dadka magaalada Baydhabo weli waxay kaga duwan tahay magaalooyin intooda badan dadkii magaalada deganaa iyo dadka ku soo qaxay ama asleegihiin ama ku soo qaxay badan ayaga hadda waxay bilaabeen inay dib u guuraan waqtiga aragteen gaajadii dhibaato jirta inay gaar dameer ugu guuraan mee 90 kilomitir 100 kilomitir jirta inay arday lug baxaan ayadoo weliba jidka looga jiro way ka baqayaan marka taasna maaragtay arrin dhacdo